waxay aabeed u sheegtay inay guriga ku dhex aragto arrin la yaab leh, balse Maya markaas may siin wax jawaaba. waxaanay u taagneyd si bilaa dhaqaaqa. yar ka bacdi waa ay soo dhaqaaqday, waxaana iyadoo si adeera u socota ku foorarsatay sariirteeda hoosteeda. markaasay saaxiibadeed tiri, maxaad samaynaysaa? laakiinse waxaabay la soo baxday Maya bahal midiya oo aada u dheer. markaas way qaylisay saaxiibadeed, waxaana isku dayday inay ka durugto, laakiin nasiib darro waxaabay la heshay mididii, waxaanay ka gelisay gacanta. markaas xanuun dartii gabadhii xoog ayay u qaylisay. gabadha ay sheekadani ku dhacday waqti xaadirkan daadeedu waa 20 sano, balse 7 sano ka hor markaasoo ay daadeedu ayd 13 sano waxaa ku dhacday dhacdo la yaab leh. dhacdadaas ku dhacday waqtigaasna waxa ay ku sababtay inay habeenkii hurdo seexan weydo, sidoo kale ay mararka qaarkood iska soo toosto, waxaanay ku reebtay xasuus aad u xun. si kastee haataba markay dhacdadaas ku dhacday aad ayay u yarayd, sidoo kale markaas qoyskeedu waxa ay ku noolaayeen xaafad aad u degan, shaarkeeduna oo aad wanaagsan yahay. xaafaddaas waxa ay saaxiiba ka hayeen gabadhaas yar waxaa la odhan jiray Maya, waxaanay walaalahaayeen wiilka weyn kaasoo dabeecadiisu aad u xun tahay, balse wax dhibaataa muu geysan jirin. markasta gabadhani waxa ay la ciyaari jirtay saaxiibadeed Maya iyo walaalkeed, waxaanay ahaayeen kuwa aad isu jecel. mararka qaarkoodna guriga ayay ugu tegi jirtay saaxiibadeed, balse maalin maalmaha ka mid a waxaa dhacday in Maya ay walaalkeedii ka weynaa ka qariso alaab ula ah. markaas alaabtaas waa weydiiyey, balse ma ay siinin wax jawaaba. waxa uu la hadlay si calo leh, waxaanu ku yidhi, waad ogtahay ee ii sheeg alaabtaas. laakiinse iyadoo istiijinaysa waxa ay ku tiri, naga tag, waxaan kuu sheegi doonaa hooyaday. markii hadalkaas ku tiri, walaalkeed waa uu xanaaqay, albaabkiina waa uu xidhay, balse markii uu baxay waxa ay bilowday qosol. maxaad ku qoslaysaa? ma adiga ayaa qariyey? saaxiibadeed ayaa weydiisay. markaas Maya waxay ku jawaabtay, haa, aniga ayaa qariyay alaabtaas. miyaynaan caawa ku ciyaarayn oo aynan ku soo jeedeen? ayay saaxiibadeed ku tiri. markaas saaxiibadeed way ka xumaatay habdhaqankeeda. ugu dambayna waxa ay ka aqbashay inay ciyaaraan habeenkaas. markay xooga iska baashaaleen ka bacdi waqtigii waa u socday, waxaana la dhaafay waqtigii cashada. intaas ka bacdi isla waqtigaasna Maya waxa ay bilowday inay sariirteeda hoosta ka gasho. markaas waxa ay ka soo saartay alaabtii ay walaalkeed ka qarisay. markii ay alaabtaas soo saartay waxa ay xidhay albaabkii qolka, waxaanay ka baqaysay in waalidiinteedu ay la hadlaan. balse markay alaabtaas saaxiibadeed aragtay wax fikira kamay haysanin, waanay weydiisay iyadoo aanu arkayn wax xiise leh. markaas Maya waxa ay ugu jawaabtay, waa ciyaar khuraafaada, labadeenna ayaan wada ciyaaraynaa. waa ay naxday saaxiibadeed, waanay fahmeyday waxay uga jeeda khuraafaadkaas. laakiinse iyadoo weli yaaban, Maya ayaa ku tiri, soo fadhiiso. waxaana isku dayeysay inay u sharaxdo alaabtaas. waxaanay u tilmaantay sidii loo isticmaalayay shaygaas yar, waxaana lagu beegayay xarfaha meeshaas ku yaala. waxaanay sidoo kale u sheegtay su-aalo badan oo maskaxdooda ku jira inuu uga jawaabi doono. isla markiiba Maya waxay weydiisay, miyay jirtaa ruux ku qarsoon guriga dhexdiisa? markaas baashi yareed markii ay jeedeen waxa ay tiri, haa. waa ay naxday saaxiibadeed. haddana su-aal kale ayaa weydiisay, waxaanay ku tiri, ma noqonayaa qof caan ah? markaas waxa ay ku tiri haddana baashi yareed, haa. Maya waxaa kaloo shaygiraa weydiisay, ma garanaysa waxaan iga khaasaa? markaas waxa uu yidhi, haa. intaas ka bacdi waxa ay weydiisay su-aashii ugu dambeysay. markaas qolkii waxa ay ka dhigtay madow, waxaanay shiday 2 xabo oo shamaca. markaas su-aashii ugu dambeysay ee weydiisay waxa ay ahayd, sidee ayaan ku noqon karaa caan? waqtigaas wax kastaaba way isbedeleen. shaygii yar ay gacanta ku hayeenna waa uu ruxmay. intaas ka bacdi saaxiibadeed gacanta ayay ka qaaday. Mayana waxa ay bilowday inay qososho. saaxiibadeedna waxayd markii koowaad ay xaalad noocaas oo kale ku aragto Maya.
Maya qosolkii ayay waday, balse qof ayaa albaabka soo garaacay. Qofkaas markii uu soo garaacay waxa uu ku yidhi, hablo caadi ma tihin. Waxaanu qofkaasi ahaa Maya aabaheed. Waxay aabaheed u sheegtay inay gurigii ku dhex aragto arrin la yaab leh, balse Maya markaas may siinin wax jawaaba. Waxaanay u taagnayd si bilaa dhaqaaqa. In yar ka bacdi waa ay soo dhaqaaqday, waxaana iyadoo si adeera u socota ku foorarsatay sariirteeda hoosteeda. Markaasay saaxiibadeed tiri, maxaad samaynaysaa? laakiinse waxaabay la soo baxday Maya bahal midi oo aad u dheer. Markaas way qaylisay saaxiibadeed, waxaana isku dayday inay ka durugto, laakiin nasiib darro waxaabay la heshay mididii, waxaanay ka gelisay gacanta. markaas xanuun dartii gabadhii xoog ayay u qaylisay. intaasay mididu ku taagnaydna xoog ayaabay uga cadaadinaysay. sidoo kale wax naxariisa umay muujinaynin. dhiiggii ka da'ayna waxaabuu ku daatay dhulka, waxaanu noqday mid qabsaday dhammaan qolkii oo dhan. saaxiibadeed markaas xanuun dartii waa isdhaqaajin weyday. markii aragtay xaaladda ay ku jirtana waxaabay malinaysay inay dhimanayso, sababtaa saaxiibadeed qayladeeda iyo sidoo kale dhiigga dhulka ku da'aya mabay arkaynin, waa iskiinna tiraysay. iyadoo xaaladdeedu sii xumaanaysana waxaaba si farsamaysan albaabkiis kaga soo furay aabaheed. markaas waxa uu soo gala qolkii isagoo oo naxsan ayaa uu ku yidhi, Maya jooji, maxaad samaynaysaa? markii uu ku soo dhawaadayna waa uu ka qabtay. intaas ka bacdi waxa uu koolgareeyey ambalaaska, waxaana markaas la geeyey gabadh yare isbitaalka. markii isbitaalkii lagu daweeyey waa ay caafimaaday. muddo ka bacdina gurigooda ayay kusoo laabatay. waxaanay markaas hooyadeed u sheegtay in saaxiibadeed Maya ay xanuun u gaara qabtay, kaasoo dhibaato ku ah maskaxdeeda.